Markii uu soo guureen degmo cusub shaqo wareejintii aabaheed kadib, Yumi Nakamura waxay hor istaagneyd iskoolkeeda cusub Hamakita ee dugsiga dhexe si ay u bilaabato maalinkeedii koowaad. Hooyadeed iyo aabaheed toona ma aysan awoodin inay imaadaan maalinkeeda koowaad ee iskoolka, sidaas darteed Yumi waxay isku dayday inay geesinimo iska muujiso oo maalinteedii koowaad iyadaa si kalsooni u timid. Fasalkeeda ayay heshay, kadibna waxay u sharaxday macalimadda inay tahay ardayad cusub oo ay welwelsan tahay. Macalimaddu waxay u sheegtay inaysan welwelin, kadibna waxay soo hor istaajisay ardadii iyadoo markaasi rabto inay ardada barto gabadha cusub. Waxay macalimaddu ka codsatay inay dhammaantood la saaxiibaan oo si fiicanna u soo dhaweeyaan. Laba gabdhood oo safka gadaale fadhiya ayaa waxay bilaabeen inay xantaan tinteeda iyo dharkeeda, inkastoo dharka iyo qabto tinteeduba ay saa'idkooda uga duwaneen. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay waqti fiican qaataan iyagoo barankii ku sameynaya xilliga bareega. Xilligii bareega, labadii gabdhood Yumi ayay la saaxiibeen, waxayna weydiiyeen inay jeclaan lahayd inay iskoolka soo kala tusaan. Iyadu waxay u sheegtay inay aad u jeclaan lahayd, balse waxay tiri waxaan rabaa inaan ogaado marka koowaad suuliyaasha meesha ay ku yaalaan. Labada gabdhood ayagoo fursaddaas ka faa'iidaysanaya ayaa waxay u sheegeen suuliyaashii inay ku yaalaan biyaanada saddexaad, balse ay u baahan tahay inay iska ilaaliso Hanako-san. Yaa weeye ayay weydiisay. Sheekada Hanako-san waxaa la sheegay inay ahayd sheeko aad uga cabsi gelin jirtay carruurta Jabaaneeska. Waxay ahayd ruuxaan oo ahayd gabar yara taasoo mar walba joogi jirtay suuliyaasha. Waxaa la sheegaa inay ahayd gabar yara oo nooleed xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, taasoo markaasi dhimatay iyadoo ku dhuumanaysa suuliga markii asxaabteeda la ciyaaraysay ciyaarta dhuudhuumasheeda. Qaar kale waxay sheegaan inay ahayd gabar ku dhimatay suuliga markii uu nin u yimid oo kadibna ku dilay meesha, ama waalidkeedii abusive-ka ahaa. Waxaa la sheegaa si aad ula kulantid Hanako-san, waxaad u baahan tahay inaad booqatid musqusha, kaasoo badanaa ku yaala biyaanada saddexaad. 3 jeer ku garaac musqusha saddexaad, kadibna waxaad weydiisaa in Hanako-san meesha joogto. Haddii ay joogto, waxaa la sheegaa inay kuugu jawaabi doonto, haa, waan joogaa meesha. Waxaa la sheegaa markaasi dadka qaar inay arkayaan gacmo dhiig leh oo godka ka soo baxaya ama Hanako-san iyadoo dhammaystiran. Haddii ay la kulmaan, waxaa dhici karta Hanako-san markaasi qofkii inay u jiido dhinaca godka ayagoo markaasi noloshooda inta ka dhiman cadaabta ku silcaya. Gabdhihii waxay ku xijeeyeen Yumi inay aado biyaanada saddexaad, kadibna ay ku garaacdo Hanako-san ayadoo markaasi rabta inay geesi loo meeleeyo oo asxaabteedan hadow aysan dhibin. Waxay ogolaatay Yumi xujadaas, waxayna aaday dhinacii musqusha. Yumi musqusha ayay soo hor istaagtay 3 jeer ayayna ku garaacday, balse waxba ma aysan dhicin. Markii ay wax dhici waayeen, albaabka ayay furtay, markaasna si degdeg ah labadii gabdhood ayaa musqusha ku soo tuuray. Kadib waxay ku tiiriyeen khaanad bir ah si ay markaasi u awoodi weyso inay meesha uga soo baxdo. Yumi way qaylisay wayna ooysay, balse hal qof oo maqlay ma jiro, hal qof oo inuu caawiyo u yimidna ma jiro. Ugu dambeyn, xilligii iskuulka ahaa wuu dhammaaday, wuxuuna markaasi noqday waqtigii habeen. Maadaama ay waalidkeeda ahaayeen kuwo xilli dambe shaqaynaya, qof markaasi tabay Yumi maqnaanshaheeda ma uusan jirin. Markaas Yumi waxay ku jirtay musqushaas habeenkaasoo dhan ilaa waqtiga laga gaarayay subaxii. Subaxii markii la gaaray, labadii gabdhood musqusha ayay soo aadeen ayagoo markaas raba inay arkaan waxa ay sameynayso Yumi barankigooda kadib. Laakiin markii albaabka fureen way naxeen sababtoo ah Yumi ma aysan ku jirin meesha, laakiin beddelkeeda waxaa meesha ku salaamay waxay ahayd Hanako-san, taasoo labadoodiba ku soo jiiday godka oo ku sababtay inay la kulmaan dhimasho aad iyo aad u xanuun badan.